maanta haddaan imika idhaahdo tollaaye aan reerka idhaahdo tollaaye war ii kacay anuu nin dee suweera walaan oo reer baa ka dhashay haddaan idhaahdo tollaaye ii kacay waxaa la odhanayaa kicin dadweynuu wadaayo sharcigiibuu gamaha ku qaato soo qabtay baa la odhanayaa xidha anigii baa lugaynayo bas waxaan ku raaca aan haysan maanta ku 27 cisho ayaan bilaa masaariif ahay reerkayga leyrkii waxaan ku bixiyaan ahayn kira waxaan ku bixiyaan ahayn waxaan raashin waa bil raashin waxaan siista aan ahayn waxaana waxa ay baday oo mas'uuliyadaas oo dhan qaadaysa waa dawladda hoosuu maayirku mas'uulka ka yahay maayirka ayaa mas'uuliyadda qaadaya masaariiftayda intaas oo cisho maanta 27 cisho bilaa masaariif ahay dusha aday ka saaranto ilaahayna ku weydiinaya anna aanan kaaga hadhayno xaqna aan u leeyahay de waayo mas'uuliyaddu de saama hadayna qofka shacbiga ilaa adigu ma abuuran ilaahay baa abuurto qof xuquuq iyo xaq labaan hay waxaan ku leeyahay maayir ayuunba meeradaadii cagaf loo gelinayaa dabatan inta la burburiyo cagafta ragaxdo ayaa ciidii iyo alaabtaadii inta la isku daraaba isku rogoyn lagu guraya saasay horta dadka ku sameeyaan dawladda alaabtii qofku waa la burburinayaa oo dad ciil qabayaalo dadka u ciil qaba weeyaan geli dumi bay ka oranayaan inanka cagafta wata waa inankan cagafta isagu amar uma haysto waxa ka oranayaan dumi dukaamo dhan oo u rasaysan bay dumiyeen saa isku dumiyeen macalaabtii ku jijibiyeen haantaada ma waxa la qaatay markii meesha la dumiyay cagafta la geliyay mise markii aad miidiyaha soo istaagtay aad hadashee maayirka iyo dawladda hoose dhalishay kadib baa la qaatay sawiradaadayna tuseenay waa kaana soo dhigay waa ka magaranaysa miidiyaha ka hadlay sidoo u hadlay yani de waan hadlayaa bari baan hadlayaa weligii baan hadlayaa inta wax iga maqan yihiin kulan habboon daawadayaal waxaa hadda barbarkayga taagan Saleebaan Cabdullaahi Ismaaciil oo cabasho weyn ka qaba maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Muge bal Saleebaan waxaan ka wareysan doonaa waxyaabaha uu kaga cabanayo dawladda hoose caasimadda Hargeysa iyo maayirkaba Saleebaan soo dhawow cabashadaadu maxay tahay waa markii saddexaadan saxaafadda imika hor imaado maanta bishu waa 4 bishii 10aad 2025 weeyaan weligii anigu horta inta saxaafad hor imi mas'uul qaran ama siyaasi halkan kama dhaliilin hadalna halkan uma marin hase yeeshee imika aniga waxa igu kalifiyaa dulmi maxaa igaga yimid dawladda hoose Hargeysa oo maayirka ka yahay caasimadda maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Muge uu ka yahay mas'uul ayaa igaga yimid dulmigaas oo ah anigu dawladda hoose ma shaqeyneen shaqada dawladeed ma ahayn hase yeeshee qof iskii u shaqeysta waan uga qof walbana horta hanti waxa u ah wixii uu haysto midba career riixaya midba caanayr meel ku yimid midba mus qof walba hanti waxa ama hantideedu waxay ahayd haan weyn oo banjara 3200 dollar laga siiyay qalabkii kale lagu shaqeynay wax kala tuurayay taayirada aan iibinayay taayirada lahaayeen daawayal anigu aan lahaa talaagada weyn oo meesha taal waxa weeye horta dulmiga aniga igu dhacay horena halkan waan uga sheegay waa markii saddexaad waxa weeye maayirkiina Hargeysa markii maayirnimada ama ololihiisii wixii uu maxaa afkii wanaagsanaa iyo hadalkii macaanaa oo dadka kala hadlayay iyo reer Hargeysada uu markasta maayirku yiraahdo Hargeysa waan jecel dadkayga waan jecel dadka reer Hargeysa aan jecelahay ayuu horta hadii jiraal maayirku ku celceliyaa anigu muwaadin baan reer Hargeysa 30 sano Hargeysa dhex taagnaa dadkii waliba anigu waxaan ahaa maayirka markii ololihiisii oo ololinayaa Facebook-ga imika laga soo heli karaa aniga oo ololinaya sababtan ugu ololinayna waxay ahayd hadalkiisa wanaagsan iyo hadalka macaanu dadka kula hadlayo anigu qabyaalad ma aqaano dadku hay doortaan waxyaabaha horta anigu maayirka aanu taageerina saasay ahayd waxa weeye maayirka Hargeysa olol inagu soo qaaday dawladda hoose ololaha ay dawladda hoose nagu soo qaaday aniga dadka la fara badan anigu meesha ma joogin waan ka maqnaa waxa igu dhacday hadii jaraalo waxaad aragteen markuu qofku de guri sharci daraa u dhisto uu taagto de wala dumiyaayo cagaf lagu yeero cagaftaas guriga way duminaysaa anaga horta wax cagaf lagu dumiyay ma lahayna meesha wax loo yaalay baleewood iyo haana qasa iyo qalabkeegi iyo taayirada lahaayeen iyo waxaan anigu lahaa saddex cagaf inta la soo kaxaystay saddex cagaf ayaa sida yuhuud maaragtay Falastiinta u gasho waxaan de cagaf lagu tala gelinba ayaa intay saa ugu xaadeen ayaa haantaasoo kaliya laga badbaadiyo anigoo maqan markaa islaamba waliba ka badbaadisay waxa laala wixii kale ilaa talaagadii la wixii inta sidaa loogu xaaray qashinka ayaa inta lagu daray ba sugargoynka weyn
maxaa tay Chinese-ka ayaa inta sidaa loo burburiyay baa saa lagu xariyo lagu shubay dadka waxa sameynayaan waxa weeye dad maayirka ka hooseeya oo mas'uuliyiin sheeganaya dee mas'uuliyad saas ma aha axmaqnimo weeyaan mas'uuliyad darro weeyaan dad ciil qabayaalo dadka u ciil qaba weeyaan geli dumi bay koornayeen inanka cagafta wata oo inankan cagafta isagu amar uma haysto waxa koornayeen dumi dukaamadan oo saa u rasaysan bay dumiyeen saa isku dumiyeen macalaabtii ku jijibiyeen marka adiga maxaa imika ka maqan aniga horta waxa iga maqan alaabaan ku qiyaasay $4,100 ama 4,000 gaadhisaba haantayda $3,200 baa laga siiyey waxa weeye TV-gana horena la wadaagay aniga qalabkaygii kale oo dhan marka xashiishka ku dareenay xaareen ayaa waxa dhacday in haantii lay badbaadiyay oo meel lay dhigay haantii baan meel asturan dhigtay oo kaalin baan hoos dhigtay oo ku diday miiryahan la hadlay dabeetana waxaan ku yidhi hanti baa iga maqan dawladda hoose burburisay hantideedana anigu ka tegi maayo haddii qori tahay waan la daba soconaya waan xaqna waan ugu leeyahay waxa weeye dabeetana marka miiryihii arkeen bay yidhahdeen ninkan waxay naga dhaliilaya halkan dabeetana aniga damcayna xidhaan way waayeen markay waayeen baa la yidhi haantan ba noo jiida haantaydu dee miyay hadashay miyay qaylisay bal maxay idiin geysatay waxa weeye un xaasnimo iyo ha dhinto iyo ha baktiyo muwaadin baan haydee dadka noocaasaa mas-uul dadka u ahee mas-uuliyad loo dhiibanaya dadka waxaa ku samaynaya haantaydii inta silsilad loo soo qaatay baa lagu jiiday magaalada saa loo jiidayo markaasay dhacday burburtay taayiraday jajabeen meel halkaasoo dawladda hoose ay leedo dadka alaabtooda lagu ururiyo dee ayaa dee saa loogu tuuray way iirsu haantaada ma waxa la qaatay markii meesha la dumiyay cagafta la geliyay mise markii aad miidiyaha soo istaagtay aad hadashee maayirka iyo dawladda hoose dhalishay kadib baa la qaatay horta haantan waa haan culus weeyaan wax 10 qof ay xitaa dhulka ka qaadi karayaan ma huwa hamaha waaweyn ijiin baa saaran gumursoor baa saaran haantan marka horeba iyagu way ka baqeen oo markan ololaha soo qaadeen way ka baqeenoo islaam baa wartii warana haanta u qaadiyo haantii dad baa lagu yidhi waa la jiido taayirey lahayd oo meel baa la dhigay markan miidiyaha ka hadlay ayay yidhaahdeen waxay ninkan halkan nagala hadlayaayo kadib 2 cisho kadib 7 bishii ololaha fuliyeen 9 bishana haanta way qaateen salaad hore ku soo gudeen marka 7 markii anigu aan imin baa lagu yidhi war baashi oo nimanka jiitay ma garanaysa sabab ma u jiiteen sawiradaada inta tuseen lahayn waa ka soo dhigay waa ka ma garanaysa miidiyaha ka hadlay sidoo u hadlay yani de waan hadlayaa bari baan hadlayaa weligii baan hadlayaa inta wax iga maqan yihiin marka waxa weeye horta anigu shakhsiyan de qof baan ahay muwaadin Somalilandra kaarkayga maanta jeebkaas ku sitaa 3 kaar baan waliba anigu sitaa kii daahir riyaale muwaadinimada kii in Siilaanya bixiyay kii lagu codeynay inta waan sitaa waxa weeye maayirku de isagu meesha iskama iman de maayirka caasimadda Hargeysa Mr. Mooge meesha iskama iman dadka anigu aan ka mid ahay shacabka ayaa doortay fartoodaas igu codeeyeen dadku ku fadhiyo kursigan ku fadhiyo dadka saaray anigu aan ka mid kahay abaalkaygu wuxuu noqday anigu horta matal waxaan ahay maanta tusaale waxaan ahay nool bulshada Somaliland ee reer Hargeysa Somaliland oo dhan bulshada intay daawanaysa dadka shacbiga reer Somaliland tusaale aan ahay in la dulmay dawladda hoose in dulmi igu samaysay dawladda hoose de kama doonayo shaxaad hase yeeshee hantidaydii baa ayaa si dulmiya oo xoog loo adeegsaday shaar dawladeed loo adeegsaday waxa weeye la burburiyay oo cagaf la mariyay oo macnihii yuhuuddu ay oo la dhaqmi jirtay Falastiin lagu sameeyay ilaa imankana maayirku wax jawaaba aanu ii soo gudbin isagoo daawanaya isagoo arka waa markii saddexaad ee imanka aan saxaafadda hor imaado waxa weeye hadalkayga anigu marnaba ma joojin maayo waxa weeye wax diinta islaamka waxa koranaysa maalkaaga qofka kugu soo doonta weyn iska celisaa weeyaan hase yeeshee dee dawladda iska celin karaya dee maanta haddaan imika idhaahdo tollaaye aan reerkayga idhaahdo tollaaye warii kacay anuu nin dee suweera walaan oo reer baa ka dhashay haddaan idhaahdo tollaaye ii kacay waxaa la odhanayaa kicin dadweynuhu wadaayo sharcigiibuu gacmaha ku qaato soo qabtaay baa la odhanayaa xidha hase yeeshee anigu waxayga waxaan ku doonayaa wanaag baan ku doonayaa Somalilander baan ahay wanaag baan waxayga ku doonayaa dawladdeedii baan hoos joogaa hadday dawladda sare madaxweynaha tahay hadday tahay dawladda hoose ee maayirku kow ka yahay dulmiga uu igu samaynayo uu arkayo maalin kastaba maayirka waxaan leeyahay maayir ubadka dhashay iyo aniga ubadkaygu waa isku mid waxa weeye dee haddaad cuqubada aad ka baqaysa dee
ood qof naxaya tahay oo qof reer Hargeysa jecel aad tahay sidaad hadalkaaga mar kastaba tiraahdo dee waxa weeye hadalkaygaad qadarin lahayd hantidaydan xaqa u lahaaba iga maqantee waxa iga hadlinaya waxa anigu weligii media kuma soo istaagin hase yeeshee waxa iga hadlinaya waxa maxkamad bay noqotay dee maxkamadda qofku markuu haysto ayuu dee maxay tahay ka dacwoodayo maxkamadda waxay ku odhanaysaa in soo cashuuro waxaaga hantida kaa maqan anigu ma haysto waxaan ku dacwoodo anigii baa lugaynayo bas waxaan ku raaca aan haysan maanta ku 27 cisho ayaan bilaa masaariif ahay reerkayga leyrkii waxaan ku bixiyaan ahayn kira waxaan ku bixiyaan ahayn waxaan raashin waa bil raashin waxaan siista aan ahayn waxaana waxa ay baday oo mas'uuliyadaas oo dhan qaadaysa waa dawladda hoose maayirku mas'uulka ka yahay maayirka ayaa mas'uuliyadda qaadaya dulmiga iyo masaariif la'aanta ay ku dhacday maalin walba halka $20 $15 iga soo galayeen today irsiqii halka iga soo galayay iyo shaqadaydii intiiba wax baabiyay maayirka shalay waxa dhacday nin agaasimaha dawladda hoose ka tirsan inuu maxay tahay nin aan saaxiibnahay wuxuu ku yiri ninka anagu haan baan u haynaa waxaan kale u sheegay anagu garanayno haantaana anagu waan siinanayo nootaayaan ku qoraynaa in aanu meesha dib ugu soo noqon bal anigu horta maayirka waxaan leeyahay meel baad naga rartay aan dee ku ganacsanayno ku shaqaysanayno quutal daruurigayga daan ka helaynay muwaadin baan waxaan ku qasbanay halkii aan masaariifteeda ka helayayba dee inaan kala soo baxay dantuna igu kalifaysaa bal inaan wada istaago iyo inaan wada dambe lagu arko bal maayirka waxaan leeyahay adigu shaqaysiyo waxaygiina dee waan kaa doonayaa haddii qori tahay kugu dhaaf maayo xaq baan u leeyahay lacag bigu wada taagnaayeen magdhowgaygii baan kaa doonayaa hanti waxaan lahaay halkaa lagaga burburiyey mas-uuliyaddeedana adaa qaadaya maayir baan leeyahay wadda dambena nagu arki mayside bal adigu waa kaasoo shaqa naga sii dee magaalada inaan wadda nagu aragto dee dantu laakiin waxaa nagu kalifaysaa intan wax iyaga meeshii aan dhigan karno inaan dhiganno dee waayo bakhaar waxaan ku kiraysta ma hayo meel aan ku dhista ma hayo danley baan hodee dantaa igu kalifaysa dastan way alaabtaada marka laga qaaday adigu dawladda hoose ma tagtay oo alaabtaadii ma raacday oo ma soo eegtay bal waxa meesha yaalay iyo siday tahay alaabteedu horta wax waa tan xashiishka la raaciyay horta way qalabkan ku shaqaynayay xashiishka la raaciyay maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa way dawladda hoose horta siday dadku arkeen dee dadka ila garanaya meelaha wadooyinka degan siday arkeen dawladda hoose waxay samaysaa markay dadka ay wadooyinkan iyo doonayso inay wax ka kaciso dadka ololo ku soo qaado cagafyo soo kaxaysata qofka iyadoo la odhan karayo muwaadin halkaa waxaa ka fur oo ka guur hadduu qofku ka dhaga adeegana inta ciidan loo dalbado ayaa wixiisii si yaroo dhibaato la'aan inta lagu qaado qofkii amarka diidana la xidhi karaa oo la ganaaxi karaa hase yeeshee dawladda hoose waxay samaysaa shaqaalaha dawladda hoose oo dhan inta soo kaxayso laba cagafna soo kaxaysato ayuunbaa meeradaadii saa cagaf loo gelinayaa dabeetana inta la burburiyo cagaftu rigaaxdo ayaa ciiddii iyo alaabtaadii inta laysku daraabaa iska rogooyin lagu guraya saasay horta dadka ku sameeyaan dawladda hoose alaabtii qofka waa la burburinaya already wallaahi ilaahay wuu iga sarreeyaa sidaa inta loo rigaaxo cagafyada waaweyn aad aragta inta saa loo rigaaxo marka anigu alaabtan aan kuu sheegayay dee hadday taayir tahay hadday daawo tahay baanadahan ku shaqaynayay tahay hadday leewaradii tahay ilaahay igu ogayey talaagad hadday tahay oo meeshay taallay gadbad iyo barliin oo meeshay taallay hadday balowdhadii meesha gebigoogiba inta daqiiq laga dhigo xashiiska saa lagu xaadhay ayaa Chinese halkaa iskargoyn Chinese yaalla saa lagu guray saddex cagaf bay waliba haayeen anu markaan iyagoo da tool dhan ka sameeyay alaabihii dadka tool samada leego ciida ay dadka alaabahoogii ka sameeyeen waxa weeye markaa intii joogtay dadka ka guratay inteedaan joogin bay markaa dhibtu ku dhacday aniga nin dukaan iga dambeeyo markaa horta waxa weeye markaan ku leeyahay dawladda hoose dadka waxaasay ku sameeyaan waxyaabaha noocaas horta dadku adeegsadaan cagaf waxaan ahayn kuma shaqeeyaan way qofkii bilaadanka qofka mas'uulka ah ummadda ka naxaya wuxuu sameeyaa dawlad baynu nahay aan sheeganana maanta wax leen Soomaaliland baynu nahay qofkii halkan miis yar dhigtay ama wax yar ka dhistay wax la oran karaa ka guur ama yara nidaami hadduu diido qofkii ciidan baa loo soo kaxaynayaa dee qofkii alaabtiisii wixii inta la guro gaari loo saarsaaraya dabeetana waar kaalay alaabtaas marka aad leedahay hadaba alaabtaadii miyaad u tegin waa anigan kule markii ay haanta iga qaadeen dee alaabtii kale waa kun xashiishka raaciyay haanta markay qaadeen in aniga xidhaan bay doonayeen kadib anigu markii aan ogaaday in haantaydii la qaado oo dadkii sheegay inay jajabtay oo dhacday oo gaari lagu jiiday dee wax dee waad garanaysaa gaari lagu jiiday oo dee aan lahayn dee farsamadii huugiyo wixii way dhacaysaa dee ayaa waxaan sameeyey xildhibaano iyo wax baan diray oo adigu
saraakiil baan dirayoo aan bartahaantu taaleyo diraan ku dhahaa bal nimankaa niyo igala soo hadla waxay ku yidhaahdaan sheekadiisu ninka way fogaatay ilaa maayirka gaadhay ilaa maayirka ay gaadho markaa wax lagama qaban maayirkii fariintaad ugu diraysaad halkan u maranaysaa maxay tahay maayirka waxaan leeyahay waad maqlaysaa anuu muwaadi somaliland tiraana hantidaydii iga maqnayd anuu ka hadhi maayo waxaan nin ka hadhayana meehi haddaad moodayso sida dadkeena reer somalilan ee afarta cisho qeylqeyliye waxaan ku yidhi dabeetana waxaan iska ilooba anigu meehi kaa waxa weye qof somaliland tiraanahay nin marka horeba magaaladiisaas ka shaqeeyaanahay oo dee siduu doonaba ha u noolaade ku kalsoonaa nolosha ku nooliyey baan ahaadee wixii yaraayaan haystayna ee ubadkayga ku noolaa anigu aan ku noolaa kire ka bixinayey leyr ka bixinayey wixiiba mas-uuliyaddeeda aday ku saarantay masaariiftayda intaasoo cisho maanta 27 cishoon bilaa masaariif ahay dusha aday kaa saaranto ilaahayna ku weydiinaya anna aanan kaaga hadhayno xaqna aan u leeyahay dee waayo mas-uuliyaddu dee saa maaha hadda inaad qofka shacbigaa ilaa adigu maad abuurana ilaahay baa abuurto qof xuquuq iyo xaq labaan haye waxaan ku leeyahay maayir haddaad ilaahay ka baqanayso oo dadka reer Hargeysa aad tiraahdo waan jeclay aan ka mid ahay dee waxaygii si nabadgelyo maayir aan kaaga helo xaqaygii aan kaa helo waxaan kala hadlayo maayir waa xaqaygii waa xuquuqdaydii waa hantidaydii waa waxaan adduunka lahaa wax kale oo adduunyada ku leeyahay ma jirto intaasaan anigu ku haystay baa adduunka wax kale oo ku haystay ma jirto marka maayirka waxaan halkan u gudbinayaa waxaygii maayir sharaf iyo karaamo waxaygii igu sii waxaygii waan kaa doonayaa qori hadday tahay kaaga tegi maayo xaqna waan u leeyahay waan mag dhabanayaa waxaygina way leyskaraysan yihiin wixii hantii halkaa aan ku lahaa ilaahayna igu ogiyo waan sheeganaya hortaadana waan ka sheeganaya way haanta lacagteed ku soo iibsatay haddii laga baahdo kale ma helayaan 3,000 haanta 500 kiilo weyn horta haanta dee baxsanay taallaa 3,700 buu siyaa baxsanay anigu se haantan waxaa ku helay $3,200 haantu keliya weeyaan qalabkii lagu shaqaynayo kaloo dhanna dee anigu dee waxyaabo kale waxtaa ka shaqayn jiro meesha ii yaalidee waxaygiioo kaloo dhan ma hayo dee inta xashiishka lagu darayoo la xaadhay baa dee la soo daadiyey dee dad dee aan dee mas-uuliyad aan dadka noocaas in mas-uuliyad dadka looba diraba maahe dadka maayirku dee xukumo isagu dee magacaabo xilalka u magacaabo weeyaan dee agaasima tahay hadday mid waaxaasta tahay hadday adigu dad dee maayirka ka hoos shaqeeyo isagu uu ka sarreeyo isagaana dee waxaygaana iyaga ka mas-uulo maayirkuna isagaa mas-uuliyadda oo dhan qaadaya ama isagu ha kula xisaabtamo iyaga ama isagu waxaygii hay dooneen xaq waxaan ugu leeyahay dawladdaas waxaygiina aniga iyadoo kombaleda ay siiso